Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhawaada maanta waxaan inoo wadaa qisada ayaa sidatan ku bilaabmaysa qisada horta ka hor intii aanan bilaabin waa inaynu sheegnaa wadankay ka dhacayso qisadu maanta waxay ka dhacday wadanka imaaraadka carabta nin ayaa isagoo naagtiisii wada wuxuu yimi maxkamadda wuxuuna yidhi waxaan furayaa xaaskaygii markii la weydiiyey xaaskaaga maxaad ku faraysaana wuxuu yidhi xaaskaygu habaar bay qabtaa yacni dadkii maxkamadda joogo dhan waa is eegeen sidee ayaad xaaskaaga ku furaysaa yacni habaar bay qabtaa ma waxbay kugu samaysay maya gabadha quruxda badan weeye wax ka dhimani ma jiraan laakiin habaar bay qabtaa iyadu waa aamusantao waa taagan tahay wuxuu yidhi mudane qaadi maalinkii ugu horreysay gabadhan aan arkay waxaan arkay iyadoo soo gelaysa guri dariskayaga ah agtiisa wuxuu yidhi waa isoo jiidat waxaan gabadhan quruxda badan waa inaad barataa gaarigii baan ka degay waxaanan aaday dhinaceedii anigoon iyadiina gaadhin gaarigiina yacni bartamaha ku jira ayaan waxaan maqlay sanqadh dib baan u eegay mise gaarigaygii ayaa gaari qashin ku dhacay gaarigaygiina waa burburay maalinkii koowaad musiibadaasay ku dhacday wuxuu yidhi yeelkeeda waa isbaranay gabadhii waxaana go-aan ku gaadhnay inaan isguursano maalinkii gabadha lay dooni lahaa waxa dhacday inaan aniga iyo reerkayga iyo dhammaan hooyaday aabbahay isdiyaarino waxaanna soo aadnay dhinacii reerka gabadhaanu ka doonan lahayn wuxuu yidhi annagoo waddadii sii soconnaa ayaa hooyaday geeriyootay taasina waxay sababtay inaanu ka leexano waddadii oo aadno dhinaca qubuuraha wuxuu yidhi ayaama markii kasoo wareegtay waxaanu go-aan ku gaadhnay yacni inaan iska guursado wuxuu yidhi mudane qaadi markii arooskeygii oo dhacaya gurigii nagu xigay ayaa waxaa ka kacay dabkiina wuxuu soo gaadhay kijadayadii gurigii aanu diyaariyay iyo kijadiina kala bar waa gubteen wuxuu yidhi maaragta mudane qaadi ma waxaan la furinbaa wuxuu yidhi ayaama markii aanu aroos ahayn waxaana soo booqday aabbahay gurigii markuu sailinka uga soo galayba waa jabay xasbiya allah wa nicmal wakiil wuxuu yidhi waxa la yidhi waxaad qabtaa cudurkan macaanka horena uma kabmaayo aabbahay waxaan u kaxaynay dalka dibaddiisa xitaa al'aana ma soo noqon yacni aabbahay maalintaasuu waddanka uga tegay dib uma soo noqon wuxuu yidhi haddii ay adeegii raacdo oo yacni ay gaarigii la fadhido 100 jeer baa askartay qabanay 100 jeer baan meel khalada ku baakin garaynaya wuxuu yidhi taa waxaa kasii daran walaalkaya xaaskiisu maalinta ayna soo booqdaan waxay ka gaadhaysaa furiin reerkii aan waxba isku hayn baa yacni xitaa inay gacanta iskula tagaan ku dhowaanaya wuxuu yidhi wax xoolahaygii aan lahaa eeyar baanu khasaaray xalay oo ugu dambaysana waxaan khasaaray oo laga soo eriyay shaqadaydii saakana waa aniga soo kaxeeyo waa furaya qaadigii waa yaabay inankaygiiow waxani wax gacantaada ku jira maaha wax gacanta gabadhan ku jirana maaha qadar weeye ha dambaabin xaaskaagu waa xaas wanaagsan iska kaxayso in yar markii uu iskaga qancay oo soo kaxeeyey misna qaadigii maskaxda u dejiyey oo in yar sii socday baa qaadiga waxa u timi waraaqdan maxaa ku qoran in qaadigan shaqadii laga fadhiisiiyey oo la eriyey qaadigii baa u yeedhay kaale inankaygiiow iyadan iisoo dhaweyn bay shaqadiiga eridee waa habaar qabta iska fur halkaa iyo qisadeeni maantana ku joogtaa waan rajeynayaa inaad ka heshid fadlan channelka subscribe saar gabaleelka furo fiidiyowgana like saar